walaal waxay ku dhinteen horta wiilasha la dilay markii hore la dilay waa labo kii dilayna walaalkooda ana waa kaasna saddex ku ay galabta maqribkii markay boolisku dileen marka qaabkay ku dhinteen haddaan kaaga warro walaal waxa weeye ciyaalkan saddex ilmo yaryar dugsiga waxay ka imaadeen masaajidka taraawiixda gooraha mar waxay ahayd ilaa adiga 11 bar habeenimo ayay ahayd marka guriga ayay sii gelayeen saddex wiil oo yaryar bay ahaayeen mid 10 jira mid 14 jira iyo mid 17 jira marka saas ay guriga sii galayaan ba wax yar ayoo kala dambeeya midka 14 jirka u dambeeyay wiilkan dili doona oo ordaya ayaa gadaashooda ka yimid kii 14 jiray buu ku dhuftay kii kaloo albaabka taagan oo 17 jirka uu asna madax ku dhuftay xabadii marka way ka kadibtay yani madunta ka istaagtay xabada ka dhamaatay waxaan baa dhacay kii kaloo madax ka saaray baashi marka waa u dhici weyd anigii wuxuu ku yiri marka albaabka fur kadibna maamadii xaafadda joogtay maamadii ciyaal yar baa joogay maamadii ciyaalka hooyada ahayd marka kadibna waa uu carar baak marka furta kiirkaana baak u gala marka labada dhimatay waa Cabdiwaxiid iyo Cabdiraxmaan yaa dilay marka waxa dilay Xanad marka saddexdooda waa ilmo Cabdicasiis saddexdoodu waxa ka hadlay horta waa isku hooyo haye danka hooyada danka aabahana laba nin oo walaalo ayaa ka hadlay dumaal bay ahayd ninkii hore oo wiilkan weyn dhalay dhintay kadibna ninka saddex ciyaalkan dambe dhalaya baa gabadhii dumaalay saasay ku dhasheen marka labada ninna waa walaalo ciyaalkoo dhanna waa isku hooyo waa gartay marka hooyadood ma joogtaa hooyadood way dhimatay arrinta hooyadood inay dhimatay ayaan iyadana maqalnay sidaasoo kale dil ay ku dhimatay sanadkii 2008 maxaad nooga sheegi kartaa 2009 bay ahayd arrintaasu waxaan ka sheegi karaa in sidaa u maqasho kale aan maqlay anu ma joogin waddanka markaas aabihii ciyaalkan yarkaa dhalayna baana kolley arrintu waa arrinta dee loo aaneynayay waa xiran yahay isna haddeer maya waa dhintaa asaga la tegiis waayahay waa gartay naga hooseeya waa gartay xabsigu ku dhintay miyaa marka may Soomaaliya waayahay wuu baxsaday Soomaaliya ku dhintay waaye waxaan ugu maqaala marka wiilkan Hanad ah ee ilmaha dilka u geystay 25 jir ayuu ahaa walaalihiis dilay maxaa ku kalifay marka inuu falka dilka geysto walaal markii ilmuhu sideed ahaan baan korkaaga soo bilaabo iskayr yahay Soomaalidu badanaa dee ma taqaano maaragtay waxaan la yiraahdo mental health issue inay la dhigay inay maaragtay sidee taalo tacaalaan ama qofka ay dabiibaan qisadaas hore aan ka hadalnay saameyn weyn ayay ku lahayd ilmo yar hooyadiis way iska maaragtay waxa weeye kolley arrimo badan buu soo maraya dadkeennuna mararka qaar taboo bay kaga dhigaan waxyaalaha qaar marka asaga dhankiisa markaan ka eegno walow aysan ahayn reason fiican oo ilmo lagu dilo walow aysan ahayn reason qof macquul oo maanta qaangaara oo walaalihiis ilmaa ku laayo haddana haddii dhanaas ka taagno aniga fikir ahaantayda waxa ku qasbay waxyaalahaas ayaa saameyn weyn ku leh ma ka dareenteen oo inuu cudurrada dhimirka qaba sidee hubka uu ku helay cudurrada dhimirka siyaabo badan ba dee dadku cudurrada dhimirka u qabaan dad wadada ka muuqato dharka dhigto halkaa maraya dadna waa dad dharkii qabo laakiin dad xanuunsana marka nin dharkii qaba inuu yahay laakiin nin xanuunsan yahay waa arkiisa ama kala sheekaysa aniga walaalkay ayuu ahaa waan is aragnay dhowr jeer collegekan si dhigan jirnay weliba waxyaalahan dadaada iyo sheeko dad baan laynaya iyo waxaas waan ka maqli jiray marka dhowr jeer dad familka mid way report gareeyeen intuu u dhaartay marka waa waxyaalo noocaas oo kale ah marka waxa weeye qofkii inuu xanuunsan yahay waa la arkaa si walow uusan maaragtay dharka dhigano halkaas uusan maaragtay waxa weeye si toos aan loo arkin kolley si dadban oo u jirta qaabkaas waayahay hadda meed ayaa idin yaallo 2 cunug gurigaa lagu dilay oo wiilka uu ku dilay walaalkood kii kaleetana booliiska oo muddo ceersanaya kadib uu la dagaalamay ayaa asagina dilay marka booliisku mid kusoo wareejiyeen meedkiisa mase may walaal waxay ku soo aaday weekend bay nooga soo aaday Mondayda ayaan filaynaa insha Allah inay saddexdooda nagu soo wareejiyaan markaasna hadday xilli fiican noo soo wareejiyaan Mondayda inaan xilli qalbigiis ka aasano haddii Mondayda xilli dambe noo soo wareejiyaan inaan Tuesdayda markaas ka aasano insha Allah waa dareemi karaa waa dareen xanuun badan ilmaadeeradooda ayaa tihiin ilmaamtilmeeda ayaa tihiin ilmahan ehelkii hadda ugu sokeeyaa tihiin sidee arrintan qalbi jab idinkugu tahay wallahi
waa qalbi jab weyn runtii sababtoo waa dareemi kartaa walaal ubax yaryar oo soo kacay mustaqbal lahaa shalay arrintan kasii darana dhacday hooyada diyaaboodu maantay ay hooseeyaan nolol adag iyo duruufo maaragta waxaa waaye iyo soo maray iyo qalbi jab badan ayagoo weliba daayar haddana maantay ayaga waxay ahaayeen weliba labadaas ciyaalka waxay ahaayeen hami aad u weyn oo maaragtay qurux badan oo faamilkii la dhihi karo waa hami qurux badan oo ka haray runtii muraayadda keliya laga daawanaya faamilkaas qoyskaas marka muraayaddaas runtii waana jabtay qalbi jab weyn iyo murugo ayay u tahay faamilka iyo dhammaan communityga ku nool Kenya City iyo dhammaan Soomaalida sababtoo ubax yaro soo kacay ahaayeen waa tahay imaamiyey ahaayeen xalayta masaajide ayay ka tujinayeen ka hor dilka habeen hore intay labaduba waxay ahaayeen maxaafidiin dhowr jeer ayay masaajidka taqwa oo ay ku xirnaayeen tartamada qur-aanka ku guulaysteen dhowr jeer ayay abaalla heleen ciyaal yaro aad u firfircoon bay ahaayeen maxaafidiin ah 14 dusha ka haya aad u fahmo badan aad u firfircoon akhlaaq badan wanaagsan ma dhammaystiri karo ammaantooda ilmihii kaleeta aawe marka laga reebo 3 hadda dhimatay iyo cunuga xabadda ay ku kitibtay oo qoriga uu ku dhici waayey inta kaleeta aawe 6 inay ahaayeen ayaa la ii sheegay sida magaalada la iga sheegay waaga hore 6 ayay ahaayeen laakiin dee kolley waa la koray waa la weynaaday 3 bay ahaayeen baxa iyo 3 baha 3 yaryarna baha bay 3 weynna baha bay ahaayeen laba gabdhood iyo wiil bay bahda waaweyn way joogaan labada gabdhood wiilkiina waa asaga galabta booliska gacantiisa ku baxay wiilashii ka 3 laba waa ay xala baxay midna waa joogaa